barakatuh. Waa Maxamed Xuseen. Maanta waxaan fiirinaynaa sidee coin jago loogu barto coinanka oo inta oo yaryar inta matana oo aan kicin oo min coinada oo aad ugu gadan kartaa maanta ashirkeena maanta halkaan ku saabsan yahay. Marka waxaan fiirinaynaa coinku waa in matana uu yahay counter address waa inaad soo heshaa. Waxaad gadanaysaa haddii exchange ka weysid Jupiter ama Solfalira ka gadanaysaa. Waxaad u baahan tahay lacag Solana inaad ku soo shubatid oo 0.1 amal ah. Marka figure lagaaga qasnayaa si aad swap u samaysid. Marka coin aad rabtid inaad ka weysid exchange inta la keenaa fursad fiican ku aragtid min coins matana waa gaari karana waa luwayn karaa. Marka waa khatar haddii aad hayn karto oo lacag yar ku tuuris kartid waa sameynaysaa Jupiter ama Solfalira lacag Solana ku soo shubanaysaa. Kadib waxaad galaysaa qoomadaadii meesha ka iibsan kartaa. Mid waa muhiim address-kana muhiim haddii Ethereum yahay MetaMask gado haddii kalena waxaad gadan kartaa BNB haddii aad Transfer aad gado. Marka aniga hadda waxaan fiirinaynaa coin Solana ku dhisan oo meme coin ah oo high risk waaye haddii aad lacagta waa ku weyn kartaa waana lacag fiican waa ka samayn kartaa. Marka hadda waxaan fiirinaynaa view all aan dhahnaa hadda coin jagaan joognaa view all aan dhahnaa kan haddii fiiri coin jaga wuxuu jiraa 544 oo kaalinta ku jira. Kan waa buu fiican yahay haddii saa loo eego inta suuqa jirta waa 70 bilyan waaye 1 milyan supply max supply waa 1 milyan. Information ka taabanaysa marka meesha laga eego halkaan all time high meesha gaaray Solana ku dhisan yahay banfan oo meesha meme coin laga soo dhiso ku dhisan yahay. Haddii aad rabto halkaan waa ka gadan kartaa. Marka address waa muhiim address ku biiraysaa. Kadib market aad taabanaysaa market horta meesha laga heli karo kaliya baa laga helayaa bam swap oo ku dhisan oo lagu meme coin laga soo saaro waaye application kaas waa application sida matana Jupiter oo kale waaye waa laga trade gareyn karaa. Hadda market halkaan kaliya laga helayaa. Marka waxaan aadaynaa haddii coin ka say haddii address ka leeyahay oo ku dhisan Solana coin walba aad rabtid kaliya waa inaad ogaataa address waa muhiim. Haddii address la'aan yahay oo aad kaliya Ethereum hado BNB hado ama Solana ama meel walba adoo doonaa kaliya waxa ku muhiim ah inaad heshid address-ka. Kadib waxaad geenaysaa Jupiter aad geenaysaa Jupiter aniga hadda waxay u jiraa banfan aan gatay $1.64 oo ku jira waxaan ka haystaa 752 oo coin hadda kuwaan hadda lacag geliyo wayna baaba'een waa kuwa hadda aan soo koobiyo oo kala ahayn oo anaa gatay hadda intaas ku dambeeyay lacagtina way mirihii bisa yaal waxaana kama hayo coin kimtaan suuqa ka baxnata. Marka haddii aad suuqi karto waa lacag ka safri kartid waa keeni kartaa laakiin lacag aad matana aan ka safri karin ha keenin. Marka address-ka Serge aan dhahnaa address halkaan ku koobiyay marka waa soo baxay coinkii waa taabanaysa marka buyer hadda terminals waa ka aragtaa halkaan live things waa ka aragtaa halkaan sida prices meesha marayo transaction oo dhacaya 1 second intaas dhacaya waa 12 second 12 minutes 16 second transaction ka dhacaya waa volume ka inta salgareysay inta buy gareysay halkaan laga arkay hadda inta salgareysay waa inta gaduudan 12 second ka hor dada salgareeyay 1 minute dada gatay
4 second dadaa gatay marka baya dhahaysaa marka coinka USDC miyaa ama Solana miyaa marka Solana taabanayna gas fee lagaaga baahan yahay si aad u gadatid coinka marka halkan waxaad gelinaysaa 0.1 amal intan waxay maximum yahay rabtaa ama 70% miya ama 50% ama all clear maximumka waa adi inta dhexe waaye marka 0.1 aan ku tijaabino 0.1 waxaan helnaa 4,724 aan helnaa oo coin marka hadda lacag ma jirto haddii kale swap aan dhahnaa tarata keliya waa lagaaga baahan yahay gas fee si lagaaga jaro si transaction loo fuliyo marka waa intaan Solana waa inaad ogaataa meesha qiimaheedu maraya oo halkii Solana haddaad fiirisid Google ku fiirisid waa inaad qiimaha fiirin karto halkii Solana markaad soo fahantid kadib waxaad dhahaysaa Sol USDT halkan waa halka Sol waxaa weeya waa 95 waaye adiga waxaa rabtaa inaad 0.1 ama soo dhigtid oo ku gadidid 0.1 wuu noqonayaa $9.54 ama ano coinkaas gelinaysaa kadib gas fee waa lagaa jaray transactionka caadi u fulayaa 0.1 intaas oo dhan $9.91 wax ka yar waaye 90 senti coinka aan ku laabano marka coinka CRD markaad ahayd kadib waxaad taabanaysaa calaamadda result receipt meesha ugu horreyn taabanaysaa kadib coinka view all aad dhahaysaa meesha kan hadda aan fiirino meesha ku dhisan yahay fiirina barwajan ku dhisan yahay oo ku dhisan yahay ton oo tonkeber ku dhisan yahay oo network waa ka copy aad dhahaysaa tonkeberka caadi u geynaysaa marka lacag oo kusoo shubanaysaa tonkeber oo USDC waa ku jira hadda kan waaye any coin rabtid waxaa gadanaysaa tonkeber waa ka swap wallet receive markaad dhahaysid kana koobiyanaysaa lacag oo kusoo shubanaysaa tonkeber adresses kan waaye marka intaan hagaday swap aad dhahaysaa coinkii waa sameynaysaa coinkii waxaad gelinaysaa halkan